jaaliyada Soomaaliyeed ee ka dhaqan xarooyinka qaxootiga Dadaab oo asal ahaan ku jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed yaa munaasabad iyo taageeraan ka muujiyeen gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo dhawaan liindooradii xilka gudoomiyaha baarlamaanka iyo waliba iyo ka qabadeena xarooyinka qaxootiga Dadaab gaar ahaan xarada Dhigaxley xafladan oo heer sare iyo hanqaban qaabiyeen jaaliyado ka dhaqan xarada Xagardheer Ifo iyo Dhigaxley iyo waliba ku qayb galay walgorod hanraab dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo isku koyti xarooyinka qaybo sheeshal gadiisan waliba niyoon ka tahniyeedeen gudoomiyaha baarlamaanka xilku cusub oo yoon dooradeen xildhibaanada golaha shacabka sodonkii bili hadda la dhaafi maynanka baagana gudoomiyaha intii uu sunnagada qofkii Soomaaliyiin mideey lahaay alana ma ku baryeena intii uu sanfuuday xilku culus oo soo qaadi maynan moojiyana daraanshoosado محمد مرسل شيخ عبد الرحمن إذا أنك تهني هذه الكلين ديبي إذا أنك تهني هذه ما إنه أجاه إن سكوب بهكرو محمد مرسل إلهي السماء بانغار جاي إن نقدين سدين اللون يعني مدحوين رئيس الوزراء رئيس البرلمان أو نسديد الناين إن نقدر دونا إن شاء الله بسم الله الكريم والصومال نبكي إدبات هذا كجرت يدك بهكرتو لأنه هدون قحوتي روجنا قحوت إلهي بس إن كداري اللمبير لهاي أو شيء بيرها كديري أو شيء هكديري أو شيء كلا هكديري مسجل لبعضن جرت بكارك كيد يجري أوجيك قحوت كوي نصيب درواي أو يعني صومالي علاقي ويبا ولا نصيب درة كلتين أولي مركا إلهي ويبا كرجينا إن حلكن محمد مرسل إلهي كأسطر صومالي نصديه أن دورت إن هنوين تان إلهي إن هلال سيميلي هذا قول جرتو مركا السلام عليكم ورحمة الله تعالى في صومالي سكلها يدبات هذه waxaan ka bixino noqon doono annagana waxaan la garab taaganahay taageero iyo duco oo nu soo duceyno dhibaatada maanta taala wadanka Soomaaliya xiriyaha qaxootiga dibka nagu haysto kii naga bixin lahaa inuu noqdo in ilaahay hilshay la garab galo iyo anka du'aayana intaas kadib محمد مرسل شيخ عبد الرحمن حنبليو محمد مرسل حنبليو قولي سيدي إلهي هرانك قولي حردان دابت ونك جرنو راحمك حيسنو أبني إيو دباتي هنو ودي دولكي ما يرجينكي دباتي هذا هاي إنها أفجرنتو سبب أغنى إن إلهي كدكو ما عندك حنبلي أنا محمد مرسل شيخ عبد الرحمن ليندور قدوميها برلمان الصومالي حنبلي محمد دواك الله ما شاء الله ما عندك حنبلي قدوميها عصب golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan yaantan ku hambalyeeyay mayba lahaa heerka adagaadi ilaahay kala garab gala ilaahay markii ayabayo mayba la ray tolka ma ka wada amaanayo ay ku wada aynay Soomaali kulli may la ray ma taraasu laakiin insha Allah dadaal may hambalyeeyaan gudoomiyaha baarlamaanka cusub alxamdulillah xafladda uu inta soo kooynaysa diida hara Dadaab waa hoteelka ما أنت حفلتي أنا سأكوني إني أنا حكر دواينو محمد مرسل عبد الرحمن محمد شيخ مرسل يا حنبليو يا حافظ الدجحلي حنبلي دا سكودري ونرديرو إبادله هلكي وسنين قاري أوجلن تكو قبضي ما ينكو باهنا إني ما أرني الصومالي مدويو ولا قبضو محمد والدور دي شليز مفران ونما يفران صومالي إني مدويو صومالي لان والله أمو هنقول لي والله أمو دقن لها ينروج صومالي إني دقوا يلدتان هنقول لي ولا كأنغن قولوا توين كان أولادن لي ولا دقوا إنفيري نفرانون si kasta taaba jaaliyadaha ku jeeda maamulka Koonfur Galbeed oo ka dhaqan xarooyinka qaxootiga yaa markii in ka horeeytay wada jaree hanka tahniyeeday mas'uul xil dawladeed oo noocan oo kala liindoorada markii lagu reeba doorashadii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Soomaaliyiin oo dhan han tahniyeeday Idriis Maxamed Xasan telefishinka caalamiga Koonfur Galbeed xariyaha Dadaab